kulanti wacan waxay sala dhamaantiin baa khiyaartaha wadanaga daawanaysa daawadaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah waxaan halkan wareysi kaga qaadayaa Cali Cabdilaahi Daahir gudoomiyaha bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland oo booqasho ku jooga dalkan boqortooyada Ingiriiska kana mid ah wafdigii ballaarnaa ee ka socday Soomaaliland ee ka qayb qaatay xuskii 18 May Cali aad baan kugu soo dhawaanaya telefishinka qaranka Soomaaliland ku soo dhawo aad baad u mahadsantahay dalmar marka hore a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim waxaan salaamayaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland ku nool arigan Ingiriiska iyo dhammaan adduunka tacaladiisa iyo bulshadeena dalkii hooyo ku nool munaasabada 18 May 33 guuradii ka soo wareegtay markii aynu xorriyadeena la soo noqonay marka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa TV-ga qaranka ee UK dalmar iyo teamkiisa sida fiican runtii ay igu soo dhaweyseen inaan halkan wareysigan bixiyo aad iyo aad baa u mahadsantii Cali wafdigii waxaad ka mid ahayd ballaarna ee ka socday dalka Soomaaliland ee ka qayb galay xuska 18 May gobollo kalena way ka dhacday oo wadankan UK ah marka iyaga miyaad booqateen mise fursadda idin saamaxay weyday aad u mahadsantahay dalmar waxaanu ahayn sidaad sheegtayba wafdigii halkan u yimid inay kala qayb galaan bulshadeena reer Soomaaliland ee ku dhaqan arigan Ingiriiska amba UK guud ahaan munaasabada dabaaldega sanad guurada 33aad ee 18 May runtii waxaanu halkan London baan anigu kala qayb galay oo noomay suuro gelin inaanu gobolada kalena tagno munaasabooyinkii waaweynaa maalintii 18aad iyo maalintii 19aad baa ka dhacay London waanu ka qayb galay runtii gobolada kale ka dhacday iyo halkan London ba waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa bulshadii reer Soomaaliland ku dhaqan ariga Ingiriiska sida fiican wada jir kale midnimada leh ay u xuseen dabaaldega iyo maalinta qiimaha iyo qaayaha inagu leh aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa guud ahaan bulshadii isku xilqaantay abaabulka xafladaha noocaasa haday tahay xafiiska Soomaaliland halkan safiirka iyo teamkiisa haday tahay ururada kale iyo waxgaradka bulshada reer Soomaaliland ee gobolada jooga oo iyaguna runtii muddo ka soo shaqeynayay xafladaas inay nagu dhacdo si aad iyo aad u qiimo badan waxaan halkan mahadnaq ballaaran isna uga jeedinayaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dibadda runtii dalmar iyo caynaan iyo teamkooda ma aha oo kaliya UK laakiin dhammaan daafaha dunida oo dhan si wada jira looga wada xusay una soo tabinayeen bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogaan dabaaldegya iyo xafladaha sida qiimaha leh aad iyo aad baan runtii sida mudakarnimada leh dhamayska tiran ay u tabiyeen maalinta munaasabadeeda aad iyo aad baan uga mahad celinayaa runtii TV-ga qaranka gudoomiye Cali waxa tahay gudoomiyaha bangiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jecelahay bal in aan ka wareysto xaqii hawlahaaga shaqo bal marka ugu horeysa hawsha aad qaranka u haysaan waa hawl nooceeya waad mahadsantahay dalmar banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waa hay'adaha dastuuriga ah ee xukuumadda waa hay'adda u qaabilsan qaranka dhinaca dhaqaalaha guud ahaan dhinaca lacagta dhinaca maamulka hay'adaha maaliyadeed dhinaca socodsiinta iyo daawacada lacagta Jamhuuriyadda Soomaaliland bangiga dhexe runtii waxa la yiraahdaa waxa weeye bangiga bangiyada hay'adaha maaliyadeed oo dhan banka dhexe isaga maamula waana la taliyaha xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha marka runtii waxaan oran karaa banka dhexe waa hay'adaha dastuuriga ah ee ka hana qaaday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 33 sano ee Soomaaliland jirtay aynu maanta dabaaldegayno runtii banka dhexe intaaba waa hay'adaha dib u dhiska dalka ka qaatay kaalin aad iyo aad muhiim ah la'aantiina Jamhuuriyadda Soomaaliland ayna dhisanteen marka runtii waxaan oran karaa wuxuu ku jira hay'adaha xukuumadda shaqadaanu haynaa runtii waa shaqo aad iyo aad u ballaaran oo kala duwan
maraaxil kala duwanna runtii bangigu soo maray xagga horumarka marka la eego sida dee dalkeenuba uu horumarayo uu korayo oynu maanta arkayno ciidankeenna hadday tahay matalan oo kale xagga horumarka ganacsiga hadday tahay matalan hay-adaha xukuumadeed shuruucdeenna institution buildingka jamhuuriyadda somalilan halkay maanta marayso ee horumarsan ee runtii aynu odhan karno dalal badan baynu kaga roreynaa ayuu qeyb ka yahay marka waxaan odhan karaa maraaxil kala duwan buu soo maray iminkana wuxuu maraya meel aad iyo aada u fiican runtii waxaan odhan karaa markaan kusoo gaabinaya su-aashaada dalmar baanka dhexe waxa weeye waa bangigii bangiyada waxa weeyana hay-adda xukuumadda u qaabilsan xagga maaliyadda iyo bixinta lacagaha amba government paymentska waxa la yidhaaho waana dee hay-addii runtii bangiyada gaarka loo leeyahay maamuleysay waa hay-addii lacagta marka financial stability-ga iyo monetary stability-ga iyo government paymentskaba iyo currency-ga hadday tahay sarifka iyo hadday tahay lacagta socodsiinteedaba intaaba mas-uul buu ka yahay markaad eegto xagga bulshada iyadana muxuu u qabtaa maadaama uu dhinacii governmentka xaggii uu aada ugu xidhan yahay uu yahay de hay-adda ugu weyn bulshadana adeega uu sameeya maxaa ka mid a bulshada wuxuu u sameeyaa adeegyo badan waxaan xusi karaa dee marka koowaad bulshada bangigu waa bangigii dhexe oo shaqadu inta badan qabta waa bangigii dhexe isagoo oo runtii baankeena jamhuuriyadda somalilan iskugu jiro bangigii dhexe iyo bangigii horumarinta iyo bangigii ganacsiga oo runtii deetana la yidhi bank of somalilan adeegyada saddexda adeegma wuu qabtaa laakiin waxaanu inta badan awoodda saarnaa waxa weeye shaqadii bankiga dhexe lahaa marka haddaan xagga bulshada usoo noqdo baanka dhexe maadaama aanu bangi ganacsi ahayn oo aanu privatka xagga matalan investmentka iyo maalgashiga aanu ka qeyb qaadanahayn wuxuu ka qeyb qaataa xagga shaqaalaha dowladda oo kale matalan oo dee bulshadii qeyb ka ah inuu maalgeliyo oo uu ku maalgeliyo mushaharkooda inuu advance usii siiyo inuu maalgeliyo hay-adaha xukuumadda iyo dowladaha hoose ee u qabta adeega bulshada inuu baanka dhexe uu sii horumariyo matalan for example ka soo qaad hay-adaha xukuumadda ee bulshada u shaqeeya adeega bixiya noocyadooda kala duwan baanka dhexe wuxuu ka qeyb qaataa inuu advance uu sii siiyo taa macnaheedu waxa weeye inuu sii horumariyo marka runtii waxaan qabaa iminka intan dambe muddooyinkan u dambeeyey oon odhan karo intii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muse biixi cabdixilka hayey ayaa bangiga dhexe uu aada u bilaabay inuu xagga horumarinta amba xagga investmentka uu qeyb ka noqdo waxaan odhan karaa laga soo bilaabo 2018 ilaa 2023 baanka dhexe lacag gaaraysa 460 milyan oo lacagta maraykanka ah ayuu maalgelin ahaan u sii siiyey amba shaqaalaha dowladda amba hay-adaha dowladda amba dowladaha hoose amba degmooyinka marka bulshadii waa inta qabatoon adeega bulshada runtii sidoo kale waxaad regulation aad ku samaysaan shilinka somalilan bal horta shilinka somalilan iga waran xaaladiisa xaguu marayaa shilinkii somalilan shilinka somalilan runtii waa dee astaamaha qaran buu ka mid yahay maanta wuu 30 guursaday 30 guuradii buu marayaa 1994 ayaa lacagta jamhuuriyadda somalilan la sameeyey maalintaa aynu lacagteenna samaysanay ee lacagteenna aynu isticmaalnay ayaa dhaqaalaha somalilanna runtii uu cagaha ku istaagay oo uu noqday dhaqaalo sugan oo marka loo eego unstability-ga amba inflationka ku dhacay regionka inta badan waynu ka badbaadnaa marka lacagteennu waxyaabaha qabato waxaa ka mid ah waa lacagta qaranka waa lacagta matalan mushahaarooyinka lagu bixiyo dhammaan hadday tahay xukuumadda shaqaalaheeda governmentka oo dhan ciidamada shaqaalaha madaxda dowladdu lacagta ay adeegsataa waa lacagta shilinka somalilan bulshadu lacagta ay wax ku kala gadataa amba wax ku kala iibsataa waa lacagta jamhuuriyadda somalilan marka runtii kobaca dhaqaale markaad eegto lacagteennu
qayb weyn bay ka qaadataa waayo de haddaynan lacagtaa aynaan lahayn waxa weeye dhaqaalaheenu muu xasileen waayo lacagta maraykanka iyo lacagteena isku sarifka marka la eego oo imika loo eego dalalka aynu jaarka nahay haday tahay Ethiopia iyo Kenyaba lacagteenu waa lacagta ugu sugan weeye waxaa laga yaabaa sarifku waxa weeye percentage 3% 2% 1% ayaa inta badan change-ka hoos u dhaca ama kor u kaca ku yimaada lacagteena ay tahay marka runtii waa lacag sugan bale waxaan oran karaa region-ka oo dhan baa laga isticmaalaa oo imika midhalan cidda inala ganacsata ee de ka timaada regions-ka kale ee Soomaalidu degto lacagteena way kaydsadaan dibadana hadhow lacagtiyo stable oo aan sarifkeedu isbedelin ayay u yimaadaan waxyaabaha runtii aynu xusi karno waxa kamid ah oo lacagteenu qayb weyn ka qaadato waxa kamid ah oo la'aanteena aynaan helay dib u dhiskii dalka markii dalka qaramaynta ciidanka qaranka la qarameynayay ee hay'adaha xukuumadda la dhisayay de shilinkeena ayaa la socodsiiyay macnaheedu waxa weeye shilinkeena la isticmaalayay shilinkeena socday inaga maamulanay inaga stabilization kiisa iyo xasilintiisa inaga lahayn marka waxa weeye wuxuu ka mid noqday waxyaabaha tiirka u taagay inuu qarankani runtii uu taabagalo marka runtii waxa oran karaa wuxuu ku jira lacagaha aan inta badan isbedelin marka regionka laga hadlayo mudane cali dadku aad waxay uga caawdaan had iyo goor inflationka iyo sicir barar baa dhaca intee maxaa sababa inuu shilinka Soomaaliland uu hehaabo ama uu marmarka qaar uu dhulka galo يعني ما waxa xagga xukuumadda siyaasad ka imanaysa mise waxa weeyaan wax ganacsatadii bulshada xaggooda ka imanaysa wallahi de inflationka iyo sarif bararka sicir barar iyo sarif bararka inta badan way iska wada socdaan oo waa mataano waxyaabaha inuu qiimaha shilinku hoos u dhaco ama lacag kastaba inuu hoos u dhacdo asbaabo badan bay leeyihiin mid waxa kamida mid external bay noqon kartaa oo lacagtaadu marbay qiimo beeli kartaa waxa qiimo tiri kara in de ay wax gooyn weydo oo wixii la siisanayay amba wax lagu iibsanayaba ay kacaan marka halka inflation ka imanaya weeye marka lacagtiiba waxba ku gooynahayn inaga mesela ka soo qaad tusaale ahaan dawladda shaqaalaheedu oo dhan waxay wax ku qaataan mushaar ku qaataan waa shilinka Soomaaliland marka hadii maciishadii kacdo iyadoo taa sabab u tahay de maadaama inagu dad wax dhoofiya aynaan ahayn oo aynu inta badan wax la soo degno waxa laga yaabaa in priceska maciishada iyo alaabtu ay dibadda ka qaali garoobaan dibadana markii dibadda ka qaali garoobo gudihiina way qaali garoobayaan taas waxay sababaysaa in marka lacagtu wax ku gooyn weydo oo mesela oo kale lacag $100 u dhiganta hadii qofku qaadanayay de inay waxba u jiri weedaan laga yaabaa halka qiimo dhac ayaa ku imanaya lacagtii qiimo dhacu yani lacagta naftigeedii kuma iman laakiin de wixii purchasing-kii ay suuqa ku gooynaysay ayaa isbedelay mararka qaarkood waxa dhici karta lacagaha waxa inta badan qiimo tira waxa weeye dawladda oo mesela oo kale qarashaad badan soo deysa oo mesela oo kale suuqa gelisa lacag aad iyo aad u badan lacagtaas marka waxay sababaysaa de in demand-ki iyo supply-gi oo intii looga baahnaa suuqa in ka badan hadii la geliyo taas waxay sababaysaa marka in lacagta ay qiimo dhacdo marka waxyaabaha inta badan qiimo rida waxa kale oo kamida de in dalku aan wax soo saar yeelan weeyo aan waxba dhoofin oo aan lacag adag soo gelin lacagtii adkeeda dalka soo gelaysa haday yaraato waxa weeye iyaduna waxay keentaa lacagtaadu inay qiimo dhacdo waayo de inta badan supply iyo demand-ka lacagta waxa weeye waa la isku miisaama marka demand-kii lacagtaada loo baahnaa waa hoos u dhacaya oo lacagta ajnabiga in loo baahdo ayaa marka kor u kacaya maadaama aynu inagu dad wax dhoofiya aynaan ahayn oo lacag adag soo ceshada oo la soo dega oo aynu nahay dad wax dhoofiya dad wax la soo dega runtii marka import inflation-ka ayaa mararka qaarkood wuxuu sababaya lacagtaadu inay hoos u dhacdo laakiin nasiib wanaag waxaan oran karaa imika 8 sano 7 sano runtii lacagteenu ay xasilooneen marka laga reebo 2018 laga soo bilaabo ilaa imika lacagteenu stable baa taana waxa stable ka dhigay mechanism-ka iyo nidaamka ay xukuumaddu u dejisay in lagu maamulo haday tahay xaq qarashka oo qarashkanaynta xukuumaddu aad bay u controlshaa oo waxa weeye wasaaradda maaliyaddu marka laga hadlayo fiscal policy-ga iyo monetary policy-gi labadii bangigii iyo maaliyadii bay wada shaqeeya dibadana halkaas control-kii waxaan suuqa loo baahnayn inta badan waa laga ilaaliyaa sida kale inuu ogsoonahay waxaynu ogsoonahay xukuumadda
madaxweyne Muuse Biixi runtii waa xukuumaddii u horeysay ee aan lacag soo daabicin runtii 7 sano lacag lama soo daabicin halka xukuumadihii ka horeeyay sanad walba lacag la soo daabici jiray taa macnaheedu waxa weeye halka control baa yimid in la controlo lacagta siyaadada ah ee suuqa gelaysa in la controlo taasina markaa waxay strong ka dhigtay lacagteena waxaa jirta kolleyba hay'ado caalamiya dawlado ma jirtaa cid aydun xiriir kala samaysan ama World Bank ha ahaato ama hay'adan IMF ta ha ahaato maadaama bulshada Somaliland ay xaq u leeyihiin in ay denoolaadaan malaayiin ruuxna ay yihiin ma kala hadashaan marmarka qaad IMF ta iyo World Bank oo kale sidii loo ilaalin lahaa lacagta Jamhuuriyadda Somaliland waa su'aal fiican runtii waxyaabaha oran karo mucjisooyinka Somaliland runtii unika u ah qariibka waxa weeye dalaan cid caawin oo aan runtii hay'adaha caalamiga ah ee dalalka marka ay lacagahoodu hoos u dhacaan kor u soo qaada ama marka dhaqaalahoodu hoos u dhaco midna oo kale macaawinooyinka bixiya Somaliland kama mid aha haddana waxaad moodaa economigeedu inuu yahay stable mid xasiloon oo sugan oo runtii iyagu isku filan marka dhinac markaad ka eegto mararka qaarkood baad soconaysaa malaha hay'adahan caalamiga ah ee wax caawiya dalalka waxoogaa economigooda iyo dhaqaalahooda markay farageliyaan wax iyagaaba abuura midna oo kale in khalkhal ay ku ridaan xagga dhaqaalaha dhinaca kale markaad ka eegtana de runtii waa run oo aad iyo aad bay muhiim u tahay hay'adaha caalamiga supportkooda aad buu muhiim u yahay in badan waa la xiriirnay haday tahay World Bank iyo haday tahay IMF ta laakiin still Somaliland xuquuqday lahayd ay hay'adaha caalamiga ku lahayd may ka helin waana waxyaabaha runtii inta badan argumentka iyo de arrimaha aynu doodaha aynu inta badan aynu hordhigno weeye inaynu wax badan aynu xuquuqaynu lahayn ayna ka helin marka runtii waxaan oran karaa hay'adaha caalamiga ah qaybtii aynu ka lahayn runtii kama inaan helin qodobka kale waxaa jira ma jiraan iyaga dawlado hadii goor Central Bank UK mar baan maqlay in ay doonayaan in ay garantiin marmarka qaar ay siiyaan bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland ma jiraan wada hadallo noocaas oo bangiyada caalamka sida dalkan UK oo kale imika joogto ama dalalka Somaliland ay saaxiibka yihiin sida Taiwan oo kale inay dhici karto in ay ad garab heshaan dawladaha waaweyn dawladaha waaweyn dawlado badan oo wada shaqeynaa way jiraan Central Bank badan oo wada shaqeynaana way jiraan laakiin wali xagga economigeena amba banka dhexe ha noqoto way bangiga dhexe uu u baahan yahay support wuxuu u baahan yahay capital wuxuu u baahan yahay midna oo kale imika mararka qaarkood midna inflation ku yimaado amba dhaqaalaha amba lacagtu hoos u dhacdo lacag adag buu u baahanayaa uu suuqa geliyo oo ku manage kareeyo amba ku maamulo suuqa laakiin waanigan kule waana dadaaladaynu wadno runtii aanu isleenahay imika inaanu bangiyo badan ku soo xidhno banka dhexe oo si friendly ay noola caawiyaan arrimaha qaarkood runtii qaar ay wada hadallo noo socdaan way jiraan laakiin waxaan leeyahay ma jiro bangi dhexe oo banka dhexe ama dawladba dad si guud u tiraahdo xukuumad banka dhexe mararka qaarkood way jirtaa dawlad ahaan dalalina caawiyaa jira inagu xidhan baa jira xukuumadeena ku xidhan baa jira waxa jira midna World Bank laftigiisu de mashaariic oo dalkeena ka fuliyo hay'adaheena dawladeed ay fuliyaan baa jira laakiin qaar si gaar ah u caawiya bangiga dhexe ma jirto waxa iyadana aan su'aal ka weydiinayaa muwaadiniinta reer Somaliland ma dhigtaan lacag bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland maxaad qodobka ka leedahay way dhigtaan oo de banka dhexe waa bangi waaniga yiri marka horeba as a commercial bank dhexe uu shaqeeyaa marka ganacsato badan baa akoon ku leh la macaamila waliba ganacsatada waaweyn ee banka dhexe xukuumadda ku xidhan oo midna oo kale de xukuumadda ku xidhan banka dhexe akoonay ku leeyihiin waana runtii ay furtaan horena way furan jireen runtii marka anagu maadaama bangiga dhexnahay imika oo bangi ganacsi ku shaqeynin oo bangi dhexe aha ku shaqeyno inta badan waxaanu faafarka siinaa bangiyada gaarka loo leeyahay inay dadku la macaamilaan maadaama bangiyada laysanka siinay oo bangiyadu iyagu adeegii waayo intii hore bangiyamayna lahayn
12 sano u dambeeyay baa bangiyadaynu furmeen bangiyaduna maalin ka dambaysa way soo badanayaan marka maadaama adeegii bangiyada gaarka loo lahaayay commercialka ay bixinayaan anagu kulama tartanno oo ma nidhaahno ganacsatadu akoonaha ka furtaan banka dhexe laakiin cidii noo timaado waa u furnaa wayna ku leeyihiin badan oo kamid ah ugu dambeyntii gudoomiye shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ognahay shilinka Soomaaliland inuu yahay astaan qaran oo calanka la maxaad kula dardaarmaysaa in maxay ka ilaalin karaan sidee bay u kobcin karaan inay waxyaabaha qaar iska ilaaliyaan يعني دردارن جود أو دوش تشيدينيسو دفاع قرن شيلنك جمهورية الصومال محيطها وسؤال في عند المر شيلنك الصومالي لان واستامه إنه كمديها سيدا علنك باسبورك استامه إنه يهين قرن أيوة استامه قرن ويهاي وليبا شيلنك آدي مهم ويهاي وأيو سعودسينتيسا تحقلينتيسا ilaalintiisu waxa qayb ka tahay horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland marka runtii bulshada wuxuu baan leeyahay deyn badan waa u soo jeedinay bulshadu aad bay u jeceshahay shilinkeeda inay isticmaasho wuxuu baan oran lahaa shilinka Soomaaliland baynu leenahay waa shilin dawlado badan oo inaga waaweyn sida shilinkeenu u xasiloon yahay aanu u xasiloonin lacagtoodu marka shilinkeena hal la isticmaalo hal la ilaaliyo way daryeel buu baahan yahay shilinku wuxuu u baahan yahay runtii in la promote gareeyo amba la dhiirigeliyo isticmaalkiisa oo aan lacag shisheeye laga horumarin karin waynu inta badan waxaad arkaysaa waayo maadaama aan idhi inta badan waxbaynu la soo degnaa dadkeenu lacagta adag bay jeceliyiin waayo maadaama qof ganacsatadeenna ay ku xidhan yihiin dawladda ay wax la soo degayaan inta badan inay lacag adag wax ku iibiyaan marka waxaan oran lahaa shilinkaynu leenahay shilinka waa laga yaabaa marka dibadda la macaamilayso inaad lacag adag u baahato laakiin marka gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland joogto de shilinkaaga socodsii marka runtii de waxa weeye barnaamijyo badan baanu ka sameynay waa digreetooyin badan laga soo saaray intiina alxamdulillah bulshada reer Soomaaliland aad bay shilinka u isticmaalaan bale waxaan oran karaa ma jiro lacag la isku diro amba wax la kala iibsado ilaa wax weeye wax lagu isticmaalaa shilinka Soomaaliland baa lagu isticmaalo bale imika waxa aynu doonaynaa in xataa ganacsiga waaweyn adeed hay dhulka iibkiisa iyo waxyaabaha in lagu isticmaalo shilinka Soomaaliland iyo de imika waxa kamid ahaa go'aamadii gudidii xasilinta shilinku aanu soo saarnay sanadkii hore waxa kamid ahaa bangiyada private inay akoon furaan Soomaaliland shilina inay dadka ku maalgeliyaan shilinka Soomaaliland halka dollar laga siinayo in shilin la siiyo akoon loo furo dad ku dhigan karaan lacagaha guryaha ay ku hayaan marka bangiyada ay dhigan karaan marka runtii wuxuu baan oran lahaa shilinkiina aamina shilinkiina isticmaala ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabayn la dalmar runtii on kaga baxaya hambaliyada shacabka reer Soomaaliland runtii anigu dalkana waan joogay oo 17 baan ka imid magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland imika muddo bil gaaraysa waa la xusayay waxaan oran karaa inta meeydaas soo gashayba waxa weeye dabaaldeg habeenadii baa socday dhalinyarada waliba dhalinyarada dadkii 30 sano wixii ka dambeeyay dhashay ayaa aad u qiiraysan iyaga aad u weyneeyay sanadkan weedigii ogaa sida looga xusay gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan dibadaha oo dhan sida si midnimo leh looga xusay waligeed looma xusin halka waxay muujinaysaa midnimada shacabka Soomaaliland iyo bisaylka aynu bisilnahay inaynu qarannimadeena meel uga soo wada jeesano inaynu u midowno in gacmaha la isku qabsado inaan la kala lahayn xafladihii aan ka qayb galay London de xisbiyada dhammi way joogeen bulshada reer Soomaaliland way wada joogtay si wada jira ayay u qaban qaabinayeen si wada jira ayay uga qayb qaadanayeen gobolada kalena la mid baahayd dalalka kalena la mid baahayd halka marka waxaan oran lahaa midnimadeena aan xoojino qarannimadeena aan weyneyno waliba shacabka qurbaha ku nool waxaan u soo jeedinayaa runtii marka ka dambaysa qurbuhu uu si adkaanaya dadkuna dadkii waaweynaa way ka soo dhamaanayaan oo waxa weeye dhalinyarada ku haraysa marka waxaan oran lahaa waayeelka iyo waalidka dhalinyarada ha looga yimaado inay wada jiraan oo inta la joogtaan in dhalinyarada dalkii joogaana ay ka mid noqdaan dalkoodina aan la ilaawin qarannimadooda aan la ilaawin loo halgamo waxaan u bishaareynaya bulshada reer Soomaaliland oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inooga rajeynaya sanadkaas inuu noqdo sanadkii ictiraafka inuu noqdo sanadkii horumarka doorashooyin baynu qabsananaa doorashooyinkaasi waxa weeye doorashooyinkii awalba qabsan jirnay bale waxaan rajeynayaa inay ka sii fiicnaadaano si nabada oo wada jira oo walaaltinimo loo galo insha Allahna
wixii ka soo baxana aynu iskuna haniyeyno shacabkeenuna uu mid u noqdo qurbahana waxaan leeyahay siyaasaddu yeena idin kala qaymin waayo qarannimo ayaa idin midaysa qarannimo ayaa ina wada deeqaysa intaasaan kaga baxaya aad iyo aad waa mahadsantihin daawadayaal halkaa waxaa noogu dhammaaday waraysigii aan ka qaaday gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda somalilan oo ku sugan dalkan UK aad baan idinku mahad celinayaa sidaa iyo nabadgelyo